عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان صحبتو aan salaam meel baa joogtaan magacayga waa Baasha Cabduqaadir Muuse channelka daawanaysan waa Baasha Fix insha Allah channelka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar haddii hore u joogteen waxa way saxaabtada la wada like and share samee runtii waxa way caawa halkan waxaan rabnaa inaan hadalno qaabka waxa way Binance-ga lacag looga deposit gareeyo adoo isticmaalaya mobile money kan leenahay kaliya maaha in aad isticmaalaysid waxa way mobile money MTN waa isticmaali karnaa M-Pesa isticmaali karnaa haddii wadamada caalamka aad joogtid waxa weeye methodka laga isticmaalay mobile money aba isticmaali karnaa runtii waxaan filayaa in Soomaaliya aysan ku jirin shirkadaha Soomaaliya sahal iyo saad inaan laga helin laakiin dadka Kenya joogo kale ama dadka caalamka kale joogo kale haddii mobile money isticmaalaan way ka deposit gareyn karaan aniga hadda waxaan joogaa Uganda MTN iyo waliba Airtel labadaba mobile money laga isticmaalaa waana laga deposit gareyn karaa haddii aad Kenya joogtid waxa weeye M-Pesa waa ka deposit gareyn karnaa marka waa easy steps wax weyn ma aha runtii tan waxa uu maarmaysaa in waxa weeye aad bangi ka deposit gareysid waxa weeye sometimes caqabadaha bangiga Soomaaliya inay badan tahay haddii waxa weeye Soomaaliya aad joogtid oo Nairobi kale waxa weeye lacagtada u soo dirsan karnaa qof in deposit gareeyo waa dhigi karnaa sidoo kale bangiga marka isticmaalaysid oo kale in daahitaan iyo waxa uu kugu yimaado hataa waa wax iska macquul ah marka runtii mobile money waa wax fiican in lacagtada kula baxdid sidoo kale aad ku deposit gareysid marka hadda maxaan sameynaynaa insha Allah hadda waxaan sameynaynaa marka ugu horeysa waxaan si aad mobile money waxa weeye lacag ugu soo dirid oo Binance-ga ugu soo dirid marka ugu horeysa waa inaad verify gareysaa lambarka aad ka soo dirisid waxa weeye lacagta waa inaad marka hore meesha ka verify gareysaa mobile money-gaaga maxaa tagaysaa meesha geeska waa ku dhufanaysaa kadibna waxa imaanaysaa midda koobaad marka ugu horeysa waa in account-kaagu verified ku yahay verified markuu ku yahay ma transaction sameyn kartaa kadib waxa imaanaysaa payment method meesha ku qoran tahay kadib ayaa waxa ku dhufanaysaa B2B payment method ba ku dhufanaysaa almost aniga added bay ii tahay ku soo darsaday laakiin se adiga waxa weeye haddii aad ku soo darsan oo kale add payment method ba dhahaysaa kadib maxaa sameynaysaa kadib waxa sameynaysaa halkan waxa ku jira mobile money badan baa ku jira ama bank transfers badan baa ku jira adiga marka waxa weeye meesha aad joogtid wadanka aad joogtid mobile money laga isticmaala ka dooran karnaa waxa dooran karnaa waxa weeye M-Pesa kale waa dooran karnaa hadda isticmaashid M-Pesa kale ama mobile money oo kale hadda isticmaashid hadda bank transferka Skrill baa ku jira Perfect Money baa ku jira waxa weeye Wall Remit baa ku jira oo kale deposit gareyn karnaa sidoo kale waxa weeye dadka Kenya joogo kale M-Pesa Safaricom taa way ka deposit gareyn karaan anigu waxaan joogaa hadda Airtel mobile money warka deposit gareyn karaa anigu hadda waxaan joogaa Uganda MTN mobile money baan isticmaalaa adiga hadda waxa weeye methodka isticmaashid bay ku xirantaa baa ku dhufanaysaa ama wadanka joogtid kadib halka waxaa gelinaysaa full name-kaaga magacaaga oo saddexan baa gelinaysaa iyo phone number-kaaga phone number-ka waxa weeye aad lacagta ka soo tuurisid baa gelinaysaa kadibna confirm taasaa dhahaysaa anigu almost waxa weeye waa igu jiraa marka uma baahni waxa weeye in aan confirm taa iraahdo ma u baahni kadib maxaa sameynayaa halkaan uu ku soo gelayaa markii MTN-kaagii iyo waxa weeye iyo magacaaga oo saddexan maxaa sameynaysaa kadib waxa soo laabanaysaa marka soo laabatay kadib waxaad imaanaysaa halkaan buu ku keenayaa halkaan marka timaadid maxaa sameynaysaa waxa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay deposit aniga hadda deposit UGX buu leeyahay maadaama wadankan joogo Uganda yahay lacag laga isticmaalana ay lacag UGX la yiraahdo ay tahay kadib waa ku dhufanayaa markaan ku dhufto wuxuu sameynayaa waxa kan yiraahdo wuxuu ku soo saarayaa currency-ga wadanka kadibna wuxuu ku leeyahay mobile money 3% fee baa laga qaadayaa inta uu ku soo qabanaya kadibna waxa dhahaysaa continue dhahaysaa continue marka tiraad wuxuu ku leeyahay enter the amount you gelinaysid lacagta rabtay inaad maal gashtido kale ama aad waxa weeye deposit gareysid tiraniga 300 kun baan deposit gareynaya waa dhahayaa 300 kun markaan deposit gareynayo 290 kun baa soo gaaraysa muxuu jaranayaa 9 kun oo fee bas buu jaranayaa runtiina waxa weeye waa lacag aad u yar haddii aad wadan kale joogtid laga yaabaa in inta in ka yar waxa weeye lagu soo dilo kadibna continue un baa dhahaysaa continue marka tiraadid muxuu sameynayaa halkan wuxuu ku leeyahay waxa gelisaa phone number-kaaga phone number-kii aad markii isku soo register gareysay registration ku soo sameysay waa gelinaysaa meesha kadibna waxa weeye pay UGX inta un baa ku dhufanaysaa kadib muxuu sameynayaa kadib wuxuu ku soo dirayaa pin-ka geli buu ku leeyahay message baa wuxuu kugu soo dhacayaa number-kaaga waxa ku soo dhacaya tan halkaan waxaan gelinayaa number-kaygaan gelinayaa +25
6774 3364 intaa markaan geliyo pay UGX baan dhahayaa. Kadibna you will be redirected buu ku dhahayaa, proceed buu ku dhahayaa, kadibna waxa weeye beam buu wuxuu kugu soo dirayaa mobilkaaga. ama marka ugu horeysa intuu sameyn wuxuu kugu soo dirayaa Gmail wuxuu kugu soo dirayaa wuxuu ku leeyahay lacag intaas transaction baa sameysay, marka waxa u baahan tahay lacagta inaad aqbashid. lacagta marka saa u aqbasho waa inaad gelisaa buu ku leeyahay koodhkaas aad gelinaysaa. koodhka markaad gelisid kadib oo koodhka waxa weeye uu ku soo dhaco pinka lagu siiyay aad gelisid baa pinki waxa la imaanaysa OTP meel yiraahdo oo bartaanada proceed marka ku dhufto OTP uu isoo saaraya. OTP-gi ayaa waxaan gelinayaa pinki la igu soo diray Gmail-ka, kadibna waxa weeye mobilkayga waxa igu soo dhacaya koodh waxa lagu leeyahay waxa gelisaa koodhkaaga waxa weeye mobile money-ga gashaa lagu leeyahay, waa gelinaysaa kadibna lacagta saas ay kugu soo gaadhay. marka waxaan filayaa waa steps yar inaad fahanteen. kadibna lacagtaada way kugu soo galaysaa as UGX way kugu soo galaysaa. lacagtaadi maxay kugu soo galaysaa as UGX. kadib maxaa sameynaysaa lacagtii markay kugu soo gasho matalan oo kale oo halkan ay kugu soo gasho baa waxa imaanaysaa spotkaas ay imaanaysaa. spotka markaad timaadid baad waxa sameynaysaa currency-ga waxa weeye aad iibsanaysid sidoo kale USDT baan waxa rabaa inaan gato USDT baan ku dhufanayaa. maadaama waxa weeye waxa rabaa CGS oo kalena waxa weeye isdiiwaan geliyo oo lacag dhigto. marka maxaan sameynayaa lacagtii way soo gashay UGX aan bay ugu jidhaa USDT baan ku dhufanayaa. USDT markaan ku dhufto kadib maxaan sameynayaa waxaan dhahayaa withdraw baan dhahayaa maadaama CGS oo kale lacagta aan u dirayo. waxaan dhahayaa deposit baan ka wadaa maadaama aan lacagtii ay mobile money ahaan igu jidho waxaan ka wadaa ay UGX igu jidho waxaan rabaa inaan u bedelo USDT. deposit baan marka dhahayaa. deposit markaan dhoo kadib markii xagga aan joogo waxaan ku dhufanayaa inta markay tahay si aan waxa weeye USDT aan u gato maxaan sameynayaa waxaan ku dhufanayaa B2B trading-ka meesha ku qoran ku dhufanayaa. almost lacagtan wax yar debit card iyo credit card ku dhufo kadibna inta aad gadanaysid oo kale geli meesha waxa ku dhufanaysaa sax deposit ama bank card ba ku dhufanaysaa sax. kadibna waxa gelinaysaa matalan oo kale waxa rabaa inaan deposit gareeyo $100 oo kale xagaan waxa ka dhigayaa dollar baan ka dhigayaa. lacagtii 291 markii igu jidhay oo kale ka soo qaad 291 ii soo galaysay waxaan dhahayaa 291 imisa noqonaysaa 291 waxay noqonaysaa continue dheh meesha way marka meesha waxa way deposit ka sameynaysid oo aad USD lacagtaada u bedelaysid. lama rabo marka pay with card buu kugu xirayaan soo maaha waa inaad ka dhigataa pay with cash balance lacagteeda balance-ga igu jidha iga deposit gareey oo macnaha lacagtii markii Ugandayska aan ku soo shubtay meesha oo aan soo geliyay waxa weeye ayada aan isticmaalo oo aan u bedesho USDT pay with cash balance ayaa soo dhufanaysaa kadibna confirm baa dhahaysaa kadibna waxa weeye almost lacagtaadu waxay soo galaysaa account-ka ku soo galaysaa. marka steps-ka aan waxa weeye meesha aan markii u dambeysay xogaa aan ku yara mataqaana inaan yara iftiimiyo ay tahay waxa weeye markii aad timaadid xaggan spot markaad timaadid waxa ku dhufanaysaa lacagta aad rabtid waxa weeye aad lacagta aad rabtid oo kale in aad iibsatid USDT baan waxa rabaa lacagteedii waa neeskayna u bedesho kadibna ku dhufan mayo waxaan ku dhufanayaa credit iyo debit card baa ku dhufanayaa laakiin ayada waxa weeye mid isticmaalaya maaha. kadib waxaan lacagtii markii igu jiray balance-ga 291 ahayd 291 ahayd baan waxa weeye baan soo dooranayaa kadibna continue aan dhahayaa. inta markaan sameeyay kadib pay with card ma dhahayo waxaan dhahayaa pay with cash balance maadaama balance-gayga aan deposit aan sameeyay oo balance ahaan lacagta igu jidho. kadib maxaa dhacaya kadib halkaas waxa weeye lacagta laga confirm garanaya confirm baa dhahaysaa almost way ku soo galaysaa lacagta maxay ku noqonaysaa USDT. kadib maxaa sameyn karaa kadib waxa sameyn karaa waxa gadan karaa si John Style iyo meel allaale iyo meesha rabtid. waxaan filayaa inaad si fiican u fahanteen guys intaasaan kusoo gabagabeynaya insha Allah dula yiraahdo haddii aad ka hesheen videogan like noo saara
channelkana waxa weeye support siiyo oo share gareeya insha Allah haduu la yiraahdo si asxaab badan u daawadaan insha Allah haduu la yiraahdo waxaan rajeynayaa in aan soo geliyo qaab badan wax online looga sameyn karo lacag insha Allah kaliya hadaan ugu weydin aan forex trading ka hadalno insha Allah loo kilaatino waxaan ku soo direynaa waxyaalo badan channelkeena ay ugu horeeyaan qaabka online looga shaqeysto ay ugu weyn tahay insha Allah cryptocurrency qaabka loo maalgeliyo ama waxa weeye insha Allah ayadana casharaan soo duubi doona insha Allah haduu la yiraahdo forex trading kinina waxa weeye usbuuca aan soo laaban doona insha Allah adeed baan islaamiya salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh